Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay meel kasta aad joogtaan. Kusoo dhawaada channelkeena Somali Chef. Maanta waxaan rabaa inaan sameeyo rootigan. Waa quraac yar oo simple ah. Ilmaha xataa aad ugu ridi kartid lunch boxkooda oo break ay cuni karaan iskoolka markay joogaan. Subaxii xataa aroortii aad u sameyn kartid. Quraac ahaan u siinaysid. Casariya xataa waad uga dhigi kartaa wax dhiba ma lahan. Haddana waxaan guda galayaa sidaan u karin lahaa iyo waxyaabaha ka samaysnaa daawasho wacan. Halkan ayaan kusoo diyaarsaday alaabtii dhan waxyaabihii aan rabay inaan ka sameeyo. Waxa halkan iigu jira waa Nutella. Nutella waxa waaye rootiga ayaa la marsadaa, chocolate uu ka samaysan yahay. Dhalooyinkan ayuu ku jira, uu ku imaadaa. Halkan waxaan ku haystaa asagana peanut butter. Peanut butter waxa waaye loos shiidan, rootiyada ayaa la marsadaa asagana. Ilmaha aad ayay uga helaan. Kan creamy waaye waxa waaye malahan looska burtuqiisa waa smooth. Aad bay u shiideen waxa waa butter camal crunchy ka ay ku qoran tahayna kan wuxuu wataa wax yar oo looski jajabkiisa ah. Waad ka dareemay markaa cunaysa looski ayaa qababac ka siinay. Halkan waxaan ku haystaa asagana waa 2 xabo moos oo aan warwareeg u soo jarjaray. Halkan waxaan asna ku haystaa waa rootiga slice ka la dhaho. Rootiga noocan ayaan maanta isticmaalayaa. Haddana sidii aan u sameyn lahaa daawasho wacan idin leeyahay. Mooskan ayaan wax yar iska leexinaa geeskana dhigayaa. Labadan xabo rootiga ah ayaan ka bilaabayaa. Waxaan marinayaa hadda halkaas xabo Nutellagan ayaan ku bilaabayaa chocolate-ka. Ilmaha aad ayay chocolate-yaasha u jecel yihiin. Marka hadda waxaan sameynayaa step-ka koowaad waxa waaye Nutellagaas ayaan waxaan marinayaa rootiga. Waad u jeedaan dhinac kastaan ka marinayaa, meel kastaan ka marinayaa. Ma rabi rootiga dhinac cad inuu soo haro micnaha meesha aan ka marinayo all aad ayaan u marinayaa. Ready waaye waa kana. Dhinaca kale xabada kalena sidoo kale hal dhinac ayaan ka marinayaa. Rooti kasta hal dhinac ayaan ka marinayaa. Labada dhinac ma wada marinaay. Waa isla arkaynaa waxaan ku sameyn doono labada dhinac haduu Ilaahay idmo. Waa kana waa mariye Nutellii waa ii diyaar labadan xabo hadda slice-ka ah. Diyaar waaye. Waxaan hadda galayaa peanut butter-ka inaan mariyo ama looski shiidna inaan qaybta kala mariyo. Looskan aad ayuu u fiican yahay. Ilmahana way ka helaan. Xabadan slice-ka ah iyo xabadeeda kale ayaan hadda waxaan marinayaa creamiga kan oo smooth-ka ah ama aadka u shiidan looska. Waa kana saan ayuu ege u jeedaan. Wax burtuq male waxa waaye waa butter camal sidii butterkii ayuu u shiidan. Kan kale aan idin tusahay oo crunchy-ga ah laakiin wuxuu leeyahay loos soo taagtaagana ku jiro oo markaa xataa cunaysa waa dareemay qababacda dareemay looska gooska qabanay. Waa kana hadda peanut butter-ki waxaan mariyaa asagana rootiga xabadan ayaan marinayaa slice-ka sidii kiyo kale dhinac kasta ayaan ka marinayaa waan ku qarinayaa waan ku daboolayaa rootiga ma rabi inuu wax yar xataa ka muuqdo. Waa kaas u jeedaan diyaar waaye. Xabadii kale ayaan soo qabanayaa slice-ka ayadana sidii kale sidii xabadii hore kale ayaan u marinayaa dhinac kastaan ka marinayaa waan qarinayaa because hadda waxaan rabaa markii la cunaayo qofkii goostaba inuu dareemo meesha inuu wax marsan yihiin si fiican oo rich ayaan u mariyay oo fiican. Waa kana saa u jeedaan xabadan kalena sidoo kale waan mariyay waan dhameeyay. Rootigii dhan waan soo mariyay maribin kaamirada inaan idinku dheereeyo. Hadda waxa halkan iigu jiraan haysta waa moos saa u jeedaan. Mooski ayaan waxaan ku safayaa rootigii aan mariyay Nutellaga ama chocolate-ka. Saa u safayna waa u jeedaan. Si waxaan rabaa uusan u kala daadanaynin markii xataa la cunayo uu kaaga daadanayn line qurux badan oo safan ayaan ka dhigayaa ila arka. Xabadii koowaad hadda Nutellaga lahayd ayaan saarooyaa mooska. Waa u jeedaan 3 line ayaan ka dhigay labada gees iyo dhexda waa isku dhamaatay. Midkan kale haddana sidoo kale sida u saaray kii kale ayaan kana u saarayaa. Rootiga waa 6 jab waaye waa 6 slice. 3 ka mid ah mooskan saaraya 3 ka midana waxba ma saaraay because waan ku daboolayaa. Waa diyaar hadda. Xabadan aan soo qabanayaa xabadan ayaan korka ka saarayaa mooska lahayd. Haddana sidoo kale xabadii kale looska lahayd ayaan korka ka saarayaa tii mooska. Tii chocolate-ka soo harta ayadana sidoo kale waan qaadayaa mooskii iyo chocolate-kii iswataan korka saarayaa waa diyaar.
haddana waxaan rabaa inaan u gudbo aan mariyo blue band. waa ujeedaan butter ma isticmaalaya bahashan blue bandan aad ayay caafimaadka ugu fiican tahay ilmaha yaa waa kula korinaysaa awlaada rootiga ayaa loo mariyaa maasha allah waaye labada dhinac baan hadda waan ka mariyay dhinacan kore unba aragteen anoo hadda marinaa dhinaca dhulka xiga oo trayga uu saaran yahayna waan mariyay labada dhinacba waxaan rabaa inaan ku dubo saas darteed ayaan labada dhinacba uga mariyay haddeertaana waxaan u gudbayaa dubitaanka halkan waxaa ii saaran baankan waayo wuu kulul yahay mar hore ayaan dabka waan shiday maasha allah si fiican ayuu u kululyahay kulayl oo qiiqana ma ahan rootiga ayaan saaraya xabadii koowaad waan saaray labaad waan saaray saddexaadna waa tanaa saddexdii xaba rootiga ahaa waan saaray dabka aan ku dubaayo dab kulul oo qiiqayo ma ahan meesha ugu dambeysa ayuu nambarka joogaa oo gaabniinta meesha oo laga gaabiyo lambarka ugu gaaban ayaan geeyey waa kana rootiga waxaan sugayaa dhinaca hoose inuu iiga guduuto oo golden brown ii noqdo qurux iigu soo baxo markaas ka bacdi dhinaca kale ayaan u gudinayaa waa ujeedaan wax qiiq iyo waxba iyo ololka ma buxooy dabku waa eber waa meesha ugu dambeysuu joogaa oo qabowga ah waa qandacun hadda waxaan sameynayaa dhinaca kale ayaan u rogayaa saan hore idinku soo sheegayo labada dhinacba waxaan ka mariyay blue banty markaas blue banty gacanta hadaada ku hayn butter waa marin kartaa butter hadaadan haynina wax yar oo olyoliivo oo meel dheer ah ayaad marinaysaa olyoliivadu waa healthy wax dhiba ma lahan caafimaad ayay leedahay saliid saytuunta waa saliid saytuun olyoliivada xabadan kale ayaan ayadana sidoo kale waan rogayaa dhinacan kore ayaan hoos geynaa kan hoosena kor ayaan geynayaa waa ujeedaan suu kusoo baxay yaa crunchy ayaa soo galaya brown oo qababac markii la cunayo lagama sheekeyn karaa idin leeya rootigan waa isla arki doonaa suu kusoo baxo xabadii saddexaadna sidoo kale waan rogay ayadana waxaan rabaa labada dhinacba golden brown qurux badan inuu iigu soo baxo hadduu ilaahay idmo diyaar waay rootigii labadii dhinacba waan ka dubay waa ujeedaan igama gubanin waan kusoo dhaweynaa kaamarada saa ujeedaan waan ujeedaan golden brown qurux badan ayuu kusoo baxay wax saliida iyo waxaasna ma lahan waxa kaliyo laga dareemayaa waa blue banty aan mariyay hadda waan ka qaadayaa waan ka bibixinayaa waa taasa saas ayuu kusoo baxay maasha allah waxaan tegaynaa saxankii waxaan rabaa hal xabo horta marka hore dhexda inaan ka jaro aan isla aragno dhexdiisa suu kusoo baxay yaa halkan xaba ayaan halkan soo saaray waxaan idinku tusayaa kow sida aan u jaraayo aniga dhexda kama goynin si waxaan u jarayaa waa ujeedaan saddex gees ayaan rabaa inuu kusoo baxo yaa ilmaha waa loo shuutayaa cuntada marka qaybtan shuutaday ka mid tahay haddana waxaan saarayaa saxankii aan ku qurxin lahaa waa kana kuwii hore ayaan soo saaray xabadii ugu dambeysay oo hadda aan soo kala jarayna waa tana ayadana sidoo kale waan soo saaray waxaan korka uga shubayaa waa icing sugar waaye ama sokorta budada ah wax yar yaa ani badanaa waxyaabahan waxaan jeclaa inaan ku qurxiyo sokortan qurux ayay u yeeshaa testina way siinaysaa waa kaasaa maasha allah saa ujeedaanbo saan ayuu noogu soo baxay kor haddana waxaan rabaa gudaha inaan isla furno isla aragno marka waxaan sameynayaa saa ujeedaan mooska uu ka muuqdaa yaa ma ka maqna meesha dhexda ayaan ka jarayaa wow waa ujeedaan aan filayaa yaa mooska waa ka halkaas kasoo jeeda qurux kan waxaa waaye kii lowska lahaa peanut butterka kii lahaa waaye waxyar kor haddaa u qaad waa ujeedaan lowska uu ka muuqdaa yaa let me try marka waa inaan dhedhamiye somaasuu kusoo baxay anaa idinka sheekeyn kara wuxuu yahay markaas lagama sheekeyn karaa idin leeyahay macaan yaa macaan qofka intaan cuna glass juice orangena ku caba breakfast wuxuu cunay oo maasha allah full ah waa idinka mahad celinaya akhwaatii sida wanaagsan aad mar kasta ii support garaysaan ii dhiiragelisaan commentiyadiina qurquruxda badan maasha allah like-ta subscribe-ka dadkii hore u joogay mar kale soo dhawaada intan ugu cusubna gacmo furan qalbi furan kusoo dhawaada waxyaabo badan oo xiiso lehna insha allah idinkaa ka bogan doontaan wayna soo socdaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu